شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. dagaaladii ugu waaweynaa ee saxaabadu gashay waxaa ka mid ah xarb alqaadisiya. ciraaq meeshan la yidhaahday ku taalla. ciraaq waxaa inteeda badan haystay Persia, dowladdii Iiraan baa ka talin jirtay. dee caasimadoodii madaa'in waa Baqdaad dhinaceeda kama foga. maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas Iiraanta ee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen, dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalka qaadisiya. dhowr boqoloo kun oo gaala iyo 30 kun oo saxaaba ah bay sortaagan iyo intii la socotay. saxaabada waxaa hogaaminaya 10 المبشرين ka mid ah Sa'd ibn Abi Waqqas baa ciidanka wata. qolada kalena waxaa hogaaminaya nin Rustam la yiraahdo, jananadoodii waaweynaa laga dambeeyay ka mid ah. markaa Rustam wuxuu rabaa bal nimankani mentally siday u fakarayaan inuu ogaado. wuxuu Sa'd weydiistay inuu u soo diro cid wada hadal bal u dhex maro. nin baa loo diray, uu soo celiyay mid kale bal ii soo dir, waa loo diray. 3 nin baa kolba mid u tagay. 3 saxaabi ayaa kolba mid u tagay. مثلا mid ka mid oo hadaynu soo qaadno Ribci ibn Aamir baa ka mid ah. ninkani wuxuu rabay inuu hanjabiyo saxaabada tan oo uu tilmaamo waxaan soo saaray gaaja iyo dhaqaale doon haday tahay inaan dhaqaale bixiyo. marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay, dabeetana red carpetska ayaa la waday. dhulaadu ballaaran. ninkan muslimiinta ka socda faras yaroo gaaban buu wataa. waa nin intaas oo bilood dagaal ku soo jiray. dee ninay ka muuqato adduun iyo dhaldhalaalkii maaha. Rabiic ibn Aamir oo faras yaroo gaaban wataa soo baxay. dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo dul eriyay faraskiisii kama degin. hay culimada taariikh sheega barkimooyinkii meesha teedsanaa mid ka mid uu faraska ku xidha. dabeetana uu ka soo dhaadhaco xag uu soo dhaco. waxay yidhaahdeen boqorka saan looguma tago, hubka dhig. boqorka adoo hubsita looma tago. wuxuu ku yidhi boqorku isagaa ii yeedhay, anigu maan rabine. haddaad rabtaana sidaydan baan ugu tegayaa, haddaydan rabinna waa iska noqonaya. boqorkii waa loo sheego. waxaa la yidhi Rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinkaa ii yeedhay ama maca hubkaygaan gelaya ama waa iska noqonaya. soo daaya buu ku yidhi, maca hubkiisa soo daaya. isagoo wixiisii situu soo galay. su-aala baa la weydiiyey markaa, maa jaa bikum, war maxaa idin keenay? abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya ka soo maxaa idin keenay? saxaari uga timaadeen. wuxuu ugu jawaabay, allahu ibtacatnaa linukhrija man shaaa min cibaadati alcibaadi ila cibaadati illahi waxda wa min dayqi dunya ila sicatiha wa min jawri ladyaani ila cadli lislaam. ilaahay baana soo bixiyey inaanu ka saaro dadka ciddii uu doono addoommahaysa addoonsanayaan oo ilaahay addoomma u dhigno. waxaan u soconnaa buu leeyahay inaynu bini aadamka xorayno. makhluuq kale inaanu addoonsan. ilaahay oo qura inay dadku addoommo u noqdaan oo dadku xorriyad helaan baanu u soconnaa buu leeyahy. cibaadadu ay ilaahay gaar ku noqoto. waxaanu kaloo u soconnaa buu yidhi inaanu dadka dunida cidhiidhigeeda ka saarro, ballaceeda u saarro. haddaba ninkan kaarbadyada cascas dhigtay ee carshiga weyn ku fadhiya ayuu wuxuu ku leeyahay cidhiidhigaa kaa saaraya. cidhiidhigu waa qalbiga. kan adduunku qiimo uma fadhiyo weyn. kaarbadyadan iyo waxaan ninkan ku fadhiyaa wax weyn oo qiimo uma samaynayso. waxaa kala fiican cadaaladda iyo maaragtay tawxiidkiisa iyo diintiisa iyo waxaa istaa kala fiican. marka wuxuu leeyahay adduunka waa dhib baad ku qabtaaye, cidhiidhigan adduun baan kaa bixinayaa, waxaan kuu saarayaa maxay? ballaca adduunkan ku geynayaa buu leeyahay. waxaan kaloo u socdaa buu yidhi diimaha dulmigooda inaan kaa kaxayno, islaamka cadaaladiisa kuu saaro. yacni mowqifkani wuxuu sawirayaa ninka kani walow uu meeshan nin ka xoolo badan oo ka birbirhka adduunyo kaga fiican uu taagan yahay, inuu muctaz bidiini yahay. diintiisa wax u dhiganta inaanu jirin inuu rumaysan yahay. taasi waxay keensanaysaa inuu qofkani diintiisa ilaashado. ilaahay wuxuu ina leeyahay xataa haddii sida kaloo dhan laydinka xoog bato, walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum laclawna in kuntum mu'miniin. war ha liidanina baa la yidhi, ha murugoonnina. idinkaa koreeya haddii iimaanu jiro. hadaad rumaysan tahay rabbiga ay ku xidhan tahay adaa koreeya.
صلى الله عليه وسلم وصحابة غير مكاها يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ربي يسوي مغضينا ان مركي بيت المقدس مسلمين تاي فرتين بيت المقدس انك فرنا عيدا كاسنا انك لو 10 المبشرين هو قامني عبيدة بن الجراح يا عيد مدوتي دبتنا ولدي مسيحيين تمشي جوجتي waxay yiraahdeen sharti ah furaha sulh baan galayna saasaanu kula heshiinayna laakiin furaha wuxun baan u dhiibaynaa amirul mu'miniinkiinu haymaado isagaan fura ku wareejinaynaa sidii buu ku soo baxay Abu Ubayda Umar buu la hadlay wuxuu yiri nimankii saasay yiraahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaale Umar uu soo baxay وربا فريه بيت المقدس انه لو وريقو ماشانا isaga furaha loo dhiibo mucaahadadii la galayna sidaas ay ku hergasho soo socday markuu meesha in yar u soo jiray ayuu wuxuu soo maray dhul dhiid iyo roob helay oo dhooba midhana dabeetana daabadii uu fuushanay intuu Umar ka daadagay oo labadii kaboodna la baxay ayuu labadii kaboodna halkan ku soo qaatay neefkiisina soo hogaamiyay dhoobadiina iska soo dhex socday Abu Ubayda iyo ciidamadii muslimiinta ragii soo dhaweynaya ka hor yimo Abu Ubayda wuxuu yiri Umarow ما تشعلن ما يصرني أن أهل البلد استشرفوك حديثك حاكم ورينيو magaalada dadkeedii madaxdeedii inay ku arkaan sidaan adigoo ninkan faydanay caga dhoobada kule in lagu arko ma jeceli buu leeyahay Umar eraygii wuu dhibsaday adiga ciidan awah law yaqul hada ghayruk buu yiri Abu Ubayda waxaan jeclaan lahaa midaan adiga ahayn inuu yiraahdo Abu Ubayda adiga ka xishoonaya buu leeyahay laakiin waan ciqaabi lahaa nin kale oo aan adiga ahayn inuu yahay marka waa ka xumay buu leeyahay law ghayruka qaalaha midaan adiga ahayn ma warkaas ka soo baxa buu leeyahay dabeetana Umar wuxuu dib ugu noqday taariikhdoodii Abu Ubayda waa ogiyay laakiin wuxuu yara rabay isagoo amirul mu'miniin ku muuqda amirul mu'miniin xagga dharka iyo haybada inuu meesha yimaado laakiin Umar wuxuu ku leeyahay waxaanu ahayn inna kunna dhalla qawmin dad aad u dulaysan baanu ahayn ilaahay diintan buu nagu ciiseeyo dad naga dhigay buu leeyahay markaanu carab ahayna dhulkayga joognay dad dulaysan baanu ahaan jirnay laakiin ilaahay wuxuu nagu ciiseeyo nagu sharfay diinta tan haddaanu ka raadina buu leeyahay sharafta meel aan diintayada ahayn ilaahay waa naduleynaya ilaahay diin buu nagu sharfay waxaan diin ahayn haddaanu sharaf ka raadina waa duloobayna waxaan uga dan leenahay qofku mu'taz bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidbidkana adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taas waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xajisto إلهي سوى النبي محمد الله الله عليه الصلاة والسلام ومن ورائه صحابة الله الله وحليله فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إلهي وحوله حجسو فاستمسك بالذي أوحي إليك وحي لغسو وحي يضي حجسو وايو جد صحبات كسوغان تيبا إلهي لي جد قمان بات كتاغانتي وإنه لذكر لك ولقومك قرآن كاسي وحي غاية دين تالغو سودة جينا شرف بوكوية هاي أدي غاية تلقى بابا إلهي لي إلهي نويدين ويدين دونا مركا وحي قال السنين ننسي السنين محي وحليته من كان يريد العزة فلله العزة جميعا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا لو حلاني شيء كواد حويان إنه غربة كقبحنه وحي أهل كتاب كهور إلهي كنت المامين كقبحيين إنه كقبحنه وحي صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كقبحده إنه معتز كوهانه ضد كفانية وان قرصنين دين تترين إنه نقانه